anigana saasoo kala cadaynaya anigoo ahaa gudoomiyaha xiriirka macallimiinta ee heer qaran xusbiga mucaaradka wadani inaan iska casilay xilkii aan u hayay taasoo markii hore xilka u qaaday inuu ahaa xil ummadeed xil qaran xil dal xil dad iyo diinba loogu hogaamin lahaa laakiin markaan arkay inuu noqday xilka aan qaaday inuu yahay xil qabiil waxaan dhigay darajadii aan u hayay xusbiga mucaaradka wadani waan iska casilay taasoo igu kaliftay inaan iska casilay majar habaabinta dhalinyarada iyo haweenka kamida ka foojignaanta habqabiileedka waxa kaloo igu kalifay markaan arkay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro inuu koow ka yahay qalalaasaha ka socda wadanka haday tahay mudaharaadadii ka dhacay Burco haday tahay mudaharaadadii ka dhacay Ceeri Gaabo iyo kuwii Hargeysaba taasoo ku eedeynaya gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro waxa kale oo igu kalifay inaan xilka iska casilo hor istaaga dariiqa loo marayay aqoonsiga Soomaaliland oo aan maanta leeyahay waxa hor istaagay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro qofkaasan maxaan ku raacay ku raacsanahay anoo ah gudoomiyihii dhalinyarada ee gacan libaax waxa halkan ka cadeynaya inaan sacasilay maxaan ku raacay aan halkaana waxa weeye shaqadii aan kaga noqday waxaan kaloo u sheegayaa xusbiga waxa weeye wadani arikan caynkan iminku ku socdo daaniya waxay la tahay inaanu sidan ku sii soconayn hadda xaliga bedelin annana waxa weeye ana gudoomiyahan waxa ku cadeynayaa inaan ka noqday ku soo gabeynay aadan jaamac jacali ahna gudoomiyihii degmada Laasgeel ee xisbiga wadani waxaan maanta oo tahay bishii 22 bishii 2014 maalin khamiis ah waxaan halkan ka cadeynayaa in maanta xisbigii wadani aanu hayay xilkaan iska casilay markaan arkay inuu noqday xisbi qabiil markaan aragnay inuu noqday xisbi aan lagu soo hiran karin markaan aragnay inuu xisbigi yahay xisbi aan horumar wadanka u haynin waxaan halkan ka cadeynaynaa hadaan nahay gudoomiyaha degmada Laasgeel inaan xilkaas iska casilay hawshaasuna halka ay ka gadan tahay xubnaha ugu sarsareeyay xiriirka jaamacadda xisbiga wadani ana gudoomiyihii jaamacadda Addis Ababa ee xiriirka jaamacadda xisbiga wadani waxaan maanta oo khamiisa halkan ku cadeynaya in aan xilkii u hayay xisbiga wadani ee gudoomiyenimo ee xiriirka jaamacadaha inaan iska casilay markaan arkay xisbiga wadani oo noqday xisbi qabiil xagga hogaamada iyo dhinac kasta marka loo eego markaanu aragnay in uu noqday xisbi dabada ka riixaya shirarka dhalinyarada sida shirka lagu qabanayo Cadaadley lagu wiiqayo qarannimada Soomaaliland waxaan maanta talooyin halkan uga soo jeedinayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo aan kula talinay haddana dhalinyarada xiriirkii jaamacadda xisbiga wadani iska casilay in uu iska casilo jagad haddii uu ka qabo qarankan Soomaaliland cadaaladiisa in uu iska casilo jagada golaha wakiilada haddii uu jecel yahay in uu dalkan Soomaaliland nabad iyo xasilooni ku dhaqmo oo aanu reernimada ka dooran ardayda midowga jaamacadaha ee hore uga mid ahaa xisbiga wadani waxaan doonayaa maanta inaan bartan ku cadeeyo inaan iska casilay xubinnimadii aan ka hayay maxay ahaydey xisbiga wadani ee ahaa ardayda xiriirka jaamacadaha oo aan waliba uga matelayay jaamacadda Hargeysa nimankii laga soo doortay ahaa iyadoo ay ugu wacan tahay sababtan iskaga casilaya ay tahay koow xisbiga wadani oo noqday xisbi qabiil inuu noqday xisbi qabiil haday noqoto dhalinyaradeeda iyo haday noqoto maxay ahaydey ilaa gudoomiyaheeda qodobka labaad waxa weeye waxaan qancin waayay barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga wadani uu doonayo inuu dalka ku maamulo waxay noqotay arrin kale oo qancin weyday qodobka saddexaad waxa weeyaan xisbiga wadani oo ay ka dhex muuqdaan xubnihii ugu sarsareeyay ee xisbigan hore u ridnay ee wadani ee waliba lagu macaanaan jiray oo lagu eedeyn jiray in dalka boob hantiyeed iyo mid maaliyadeed bay u geysteen oo hadda doonaya waliba inay kamaradaha isku dhigaan oo ay soo fadhiistaan iyagoo eedeynaya dad iyo madaxweyne iyo wasiirro dalkooda wax u qabtay qodobka kale waxa weeyaan xisbiga wadani xisbi waa xisbi qaran wax loo baahnaa
inuu dalka toosiyo wixii dhaliilay xukuumaddu leedahay si fiican oo wanaagsan u sheego laakiin waxaad moodaa inay tahay meel iskuga habar wacday in ummadda lagu xajimeeyo ayadana moodaya wadada ama dariiqa lagu gaadho kursiga ugu sarreeya maxay hayday kursiga ugu sarreeya dalka madax laga noqdo